anigu markaan fiiriyo aragtida oo naafada inta ugu badan ee laga cabiro ah oo aad looga hadlo waa xagga aragtida aragga ahmiyadda uu leeyahay bay daliil u tahay aragtidaas waxaa la dhahaa waa aragtida maadida ah maadi waaye aragtida midna waa maadi midna micnawi waxaa aad u sarreysa oo aad u fiican midda micnawiga ilaahay qur-aankiisa wuxuu ku sheegay fa innaha laa tacmal absaar walaakin tacmal quluubu alatii fi suduur sideedaba midda ilaahay uu u yaqaano indhala-aan waa midda qalbi la-aanta weeye ee qalbigu qofku ka indhabeela muxuu ka indhabeelaa waa markuu xaqa arki waayo waa markuu dadka dulmiyo waa markuu wax kufsado waa markuu wax dilo waa markuu wax dhaco kaas weeye midka indhahala ma aha midka indhahala midka araggala ma aha laakiin midka indhahala waa midkaas naafadu marka innaga dadkeena naafada ah Soomaaliya adduunka waan ka duwanahay sida ay wasiiradu sheegtay wiigii la arkaba ama bishii la arkaba waxaa laga yaabaa 10 inay naafay naga noqdaan marka anigu waxaan filayaaba inay ka badan yihiin 20% ama 20 boqolkii inay ka badan yihiin aan aaminsanahay aniga haddii si sax ah loo tira koobo dadka naafada ee Soomaalida inay ka badan yihiin aaminsanahay yani qaraxa dhaca imisa ku lugo iyo gacmo beesha imisa ku dhaga beesha imisa ku indha beesha isbitaalada tago bal idinka fiiriye inta qof naafa ku jirta meeshaas marka inaga boqolkiiba 20 minhin waan ka badannahay aniga san aaminsanahay dadkeena naafada aad bay uga badan yihiin dalkeena dhibaato ka jirta dhibaatadaas waxay saamaysaa dhammaan dadka oo dhan laakiin ayaga waxa uu gaar ah way nugul yihiin nuweelka waay waxa si ay dhibaatada ah waa nuweelka waay innaga Soomaali ahaan waxaan nahay bulsho aan u fiicnayn dadka naafada ah horay uguma fiicnayn haddana uguma fiicnayn waxaa runtii aad iyo aad wax looga xumaada ah يعني إن سيدا أي شيئين عن أفحمة كدينا حتى أفحمة إيه أفلقادة لنا كدينه يابا فعنا الله لكن إنك نقن أهان ضد الصومالية دان هاي ضد كنا فضا ضد أدو درمانة هاي كسب بلعبتها قيسك فملك أباها يهوي ذا كبلعبتها مركب فملك أباها يهوي ذا أي كبلعبتها كما بلعبته مدحته كما بلعبته ayaka ka bilaabataa ayaga tii indhaha la'ayd kii lugaha la'a kii meesha ka soo bilaabataa ilmaha way kala sarreysiyaan kaas ay ka sarreysinayaan dan bulshadii halkaas uu ka imaanaya say sheegayeen gabadhii dariska hay'ada meeshan miskiinta hay'ada indhaha la'ayd wixii saas ku soo soconaya kadibna waxba lama barayo halkaas ka sii baxaya iskuulaha soo dhiganay jaamacadan dhiganaynay qof indhala ama maxaan ku dhahaa waan dhigayay qof indhalana waxba ma barin lamana baranin qof laakiin de cheese iyo ama waxoogaa naafaka lugta iyo lugaha kuwaasi waxa weeye way socon karaan laakiin waxa ugu daran runtii markay waxbarashada timaado waxa weeye waa dadka dhagahala oo maqalkala iyo dadka araggala kuwaas way kuwa ugu daran marka haddaynu dawlad soo ahayn dee guryahan aynu leenahay hadda lama dhisina berigaasaa la dhisay meel laga koro ma aragteen dawladdu waxay ka timaadaan bulshada iyo dareenkeeda marka guryaheennii iyo wasaaradaheennii iyo isbitaaladeenii looma samayn hab loogu talagalay dad naafo ah inay meeshaan ay wax ku leeyihiin looguma talagelin waxaan u baahannahay marka from the scratch hadda inaan ka bilowno oo la regulate gareeyo haddii ilaahay yidhaahdo insha allah xeerkaasna waxaan rajaynaynaa inaan ku dadaalo in xuquuqdoodu ay ka muuqato meeshaas oo ay dawladdu sharciyeyso xuquuqdooda